maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad ayaa maanta xukun dila ku riday eedeysane Ismaan Ibraahim Cabdi oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana lagu soo eedeeyay in dhawaan qof shacab ah ku dilay suuqa weyn ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay saaka ayaana maxkamadda u fadhiisatay daawada qaabeedkiisa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad gaashaanle sare Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda taariikhdu markay ahayd 22 bishii 2021 saacaduna ahayd 10 subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysana gacan ku dhiigle dable booliiska Ismaan Ibraahim Cabdi 22 jir ah in Yurub Mire Maxamed oo dhashay Qoryooley gobolka Shabeellada Hoose degan Baydhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si bareer ah oo la kaca u dilay taariikhdu markay ahayd 12 bishii 2021 saacaduna ahayd 18 marxuum la oran jiray Axmed Madnuur Mursal in Xaawo Maxamuud Mursal 33 jir ahaa kadib markii hal xabo ah ka foodhisabana uga dhuftay feeraha isla goobtiina ku geeriyooday marxuumka dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo suuqa sariiraha xaafadda Bardaale dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda 178 suuratul baqara aayadaha 345 suuratul maa'ida iyo qodobada 434 xeerka qaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka 19aad xeerka qaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedeysanaha ka hor qirtay garsoorka maxkamadda horteeda in uu asagu dilay marxuumka kuna dhuftay hal xabo ah ka foodhisabana markay aragtay sawirka laga soo qaaday meydka marxuumka markay aragtay fiidiyoogii ay duubtay kaamirada qarsoon ee goobtaas ku xirnayd oo si toos ah u cadeynaysa qaabkii uu dilka u geystay eedeysanaha markay dhageysatay gabagabadii xeerlaaliyaha oo ahayd in eedeysanaha lagu xukumo xukun waafaqsan shareecada islaamka markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududay maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyay sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in dembiile gacan ku dhiigle dable booliiska Ismaan Ibraahim Cabdi uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Axmed Madnuur Mursal cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan rafaan wabillahi tawfiiq dhanka kale taliyaha qaybta booliska gobolka Bay gaashaanle sare Aamin Madaruur ayaa digniin u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed inay ka adkaadaan qorigooda cidii xadgudub u geysata shacabkana iqaab la marin doono geeka mayba ka digaana ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliska anti online askari ee lankii shacab dila u jaasintiis dil toogasho oo ma qaado doona diya la qaada iyo reer hebelo ama uni haagan dhahayaan ma suurtagal doonta hadii Ilaahay yar qof kasto lan shacab dil laakiin askari walaaliye diloon dil unun hadii Ilaahay yar maxkamadda bahab meeraaj kaas ko kunta hadii Ilaahay wal fuliye ciidamadu way baan ka digaanay mar lamaadan ka digay mar saddexdan ka digay anti oo goriidiyo ka adkaadan goriga markoorey tarti koow la qaada ka baad iimaanka la furlo googaray ka baad shiishka la qowdo haba madrasa badadiyaas laakiin meel oo ka fakati gorigu habada ay ingili madara soo bilaayar qof kasta oo ciidamada qalabka sida ka tirsan ama ciidamada booliiska goriga ka kaaw Siraaj Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.